Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan kusoo dhawow muuqaalkan in Photoshop markaan joogno waxa laga yaabaa markastoo shaqadaadi sii badato inaad u baahatid maxaan ku rahday effectiyo tiro badan oo layer style kala duwan aad samaysid isla markaana aad danaysid ama ay shaqadaadiiba ka mid noqoto inaad wax qurux badan oo layero stylekoodu kala duwan yahay samaysid marka Photoshop waxay leedahay features effectiyo aad ku dari kartid layerkii si gooni ugu dari kartid maadaama ay Photoshop ku tahay layer based oo aad layer kasta si gooni ah aad u style gareyn kartid dabcan iyadoo dhowr layer haysta isla ay hal meel hal documentina ku dhex saaran yihiin inaad kala duduwi kartid mid walba effect gaar ah iyo aad u sameyn kartid waxyaalaha kala duwan marka muuqaalkan waxaan ku qaadan doonaa effectiyada qaabka loogu soo daro markaad Photoshop ku joogtid effectiyada saa ugu dari lahayd waxa loo yaqaan layerskaaga layerku marka wuxuu noqon karaa wax kaste wuxuu noqon karaa qoraal wuxuu noqon karaa maxaan ku radaa sawir wuxuu noqon karaa waxyaalo kale aad ku soo darsatay meesha marka si aan isla soconno waxaad u baahan tahay inaad soo furto documentiga lagu talagalay tutorialkan waxaad tagaysaa dabcan folderkii waxaad kasii dooranaysaa essential marka dhex tagtid waxaad tagaysaa layer style waxa kaaga soo bixi doona faylkaas markaas soo furaysaa waxa ku soo furmi doona fayl qaabka u eg markuu soo furmo saa halka uga jeedid waxa laga inoo ku qoran qoraal qoraalkaas effect gaar u leeyahay qaab gooni u eg yahay mid kale ku hooseeya isaguna si gaar u eg yahay waxa meesha ka sii hooseeya kalluun isna effect gaar leh mid kale isna dhinac yaala waxa hoos yaala waxa loo yaqaan calankii Soomaaliya oo kale isna isaguna halka yaala marka inta halka layer shan wax ka muuqda waxa loo yaqaan lixda layer mid walba wuxuu leeyahay effect gaar oo qaab loogu soo daray gooni ba jirta marka layerska qaabka ugu daraysa waxay tahay marka u horeysa waxa dooranaysaa layerkii tusaale ahaan kan oo kale Soomaaliya halkaas ku qoran tahay dabcan waxa la socda effect la yiraahdo stroke wuxuu ka dhigay qoraalkii colorkiisii markuu jiro in line colorka uu ka kor saaray tusaale ahaan qoraalku caadi ahaan waa jaalle laakiin waxa kor saaran line yar oo buluugan oo ku wareegsan qoraalkaas markaasaan u aragno effectigaas waxaan tagaynaa layerska tag halkaas ku dooran Soomaaliya marka hoos fiirisid halka wax ku garan kartaa inuu halka stroke qoran yahay stroke marka inuu effect yahay wax garan kartaa effects haddaan click siiyo waxa ii soo baxaya meeshii aan ka access kareyn lahaa dhammaan effectiyada kale aan layerada saari karo tusaale ahaan bifal inbox ka isku yaala waxa kale oo ku yaala inner shadow inner glow kulli waa ku dari karaa laakiin hadda inaga maxaa noo saaran stroke haddaan click siiyo waxa ii soo baxaysa isla meeshii aan ka size gareyn lahaa ama cabirkiisa ka yareyn lahaa oo baan halkaas ka yareyn karaa ama opacity ka yareyn waxa effectigaas settingkiisa oo dhan baa halka ka heliya daan baa colorkiisa inaan bedelo oo madow ka dhigo ama orange ka dhigo ama blue ka dhigo ama casaan ka dhigo intaba halkaas ka bedelaya marka qaabkaasaan u soo gelinay qaabkaasaan u bedeli karnaa wax loo yaqaan stroke oo wax uga bedeli kartaa isaga doortid kadib halkaas ka samaysid layerka ku xiga hadaad isagana si fiican u fiirino Soomaaliyada kale waxa weeye wax la socda wax la yiraahdo drop shadow wax ka dhigaya inaad layerkii u samaysid har marka harkaasi har isaga ku dhex jira ma waa har banaanka ka sheey tusaalahan qof meel taagan hadii dhinacan qorraxda ay qabato dabcan har buu yeeranaya Soomaa harkii har la mid ah usoo eegada sartayna samaysid isagana saas ugu daranadaan fx click siino waxa noo soo baxaya waxaan ku raadayay meeshii aan isagana kaga darnay waa ka layerska wax effects kan u hooseeyo styleka u hooseeyo way halkaas markaa uga dari karnaa haddaan rabo inaan wax ka bedelo haddaan rabo inaan kulli settingkiisa oo halkaas ka hadaan size-kiisa fogeynayo waxa dhan distance-ga halkaas u sameyn karaa qaabkaas marka isagana aan ugu soo darnayo halkaas ka soo sameynay layer ka hooseeyo wuxuu leeyahay wax loo yaqaan gradient oo shape way kalluun ahaan u samaysan qaabkiisa gradient isagana haddaan click siino waxaan click siin karnaa marka fx taas oo yahay stylekii calaamadda lagu garto inuu maxaan ku leeyahay shape-kaas ama layerkaas inuu style leeyahay gaar ah garan kartid sana click baa siin kartaa fx-ta ama waxaad ba click siin kartaa si gaar ah inaad dartina oo aad gradient-iga click markaas iyo automatic gradient uu tagaya marka isagana halkaas ka bedeli karaa color-kan rabo ka dooran karaa gradient qaabkaas aan soo galiyay qaabkaas aan ugu soo daray waan arkaynaa isla meesha exercise-kan ku sameyn doona qaabkan ugu dardarayno kan ka hooseeya isla oo guduudan forum qoran waa calankii Soomaaliya laakiin waxa saaran effect gaar ah click isagana halkan waxaan ka arki karnaa inuu saaran yahay wax loo yaqaan color overlay wuxuu ka dhigay inaad shape-kii ama waxa ku dhahay layerka halka ku oola effect color one color oo la saari kartid
tusaale hadda inagu casaan baa inoo saaran haddaan u baahnay inaan bedelno waa kol overlay baan dooranaynaa kadib waxaan tegaynaa halka laga bedeli jiray markaasaan waxaan ka bedelaynaa qaabkan kalarkaan rabno saari karnaa then okay baan dhahaynaa qaabkaasaan u wadaynaa oo kalarkii u bedelnay kan xagga ka xiga midigtaa waa isla calankii Soomaaliya laakiin wax saaran wuxuu leeyahay effecti kale effectigaas halka ma arki karno laakiin klik haddaan siino wuxuu leeyahay wax loo yaqaan outer glow waxa weeye inaad u samaysid if ka baxaya marka if ka baxaya one color inuu if hal color uma samayn karaan color badan baa ka samayn kartaa click baan siinaya halkaas markaan soo doorto outer glow dan waxa soo baxaysa outer glow markaan doorto tusaalahan saa u doorto waxa soo baxaysa meeshaan ka bedel lahaa isaga settingkiisi noocaan rabo iyo intaan rabo inuu gaaro adu san set stylekaan saaray meeshaan ka bedelayay baan soo baxaysa marka haddaan baan color ka bedelo dabcan halkaas aan click siinaya waxa ka dhigay outer glowgiisa ka dhigay cagaar oo kale ka dhigay casaan ka dhigay madow dabcan uu isbeddelaya hadda halkaas si fiican uga muuqdo laakiin kalarka kooban baa ka muuqan kara maadaama meeshu tahay meel maxaan raadayay ay ku jirto background kala hore leh cadaanka oo kale si fiican buu muuqan karaa dabcan waa dareemi kartaa if banaanka ka jira saan qaabkaasaan u bedeli karnaa marka waxaan sameynaynaa inta halka ku samaysan baan si practice u sameynaa waxaan u baahanahay inaan iska xirno marka qaybta example-ka waxaad furaysaa qaybta exercise-ka ee file-ka ku jirta waa visibilities waa qarsan tahay laakiin tan meesha click siiyo way soo baxaysaa tusaale ahaan waxaan ka bilaabaynaa Soomaaliya koowaad taas kale waxaan u baahanaynaa stroke daro oo stroke wuxuu ka dhignaynaa line-ka buluugan kor saarno saan u saarno layer-kii baan dooranaya kadib waxaan tagayaa FX halkaasaan kaga soo dari karaa kaan u baahanahay ama isaga waxaan siinayaa click dan waxay soo baxaysaa layer style-ka meesha ka gelin lahaa layer style-ka tusaalahan waxaan u baahnaa inaan stroke inaan geliyo stroke halka fiiri stroke waa kan dabcan stroke waa saaray stroke colorkiisa muxuu ahaa blue buu ahaa blue halka ka tag isagana ka soo dooro meeshaas oo kale blue markaan doorto dabcan ma muuqdo stroke iyo laakiin waxaan u baahnaa size ka weyniysan u arko saas amal buu ahaa qaabkaas kale u baahnaa markaan size gareeyo opacity-gana aan full ka dhigo baan waxaan samayn karaa then okay baan dhahay haddaan inside rabo inaan ka dhigo oo gudaha geliyo saas haddaan outside rabo saan dhahaya haddaan centerka raacinayno qaabkaasaan u sameynaya outside markaan nahayno outside okay baan leenahay saasaan layerka effect ugu darnay kan ka hooseeya Soomaaliyeed kale waxaan u baahanahay inaan drop shadow ku darno isagana saan ugu darno isaga layers ka dooranaynaa kadib waxaan tegaynaa FX markaasaan halkaa kaga dari karnaa ama inoo halka kaga darin ba click baan siinayna automatic waxa noo soo baxaya meeshaan uga dar lahayn drop shadow ama layer styles waxa ka dooranaysa marka drop shadow waa dooranaysa drop shadow markuu saas yahay ma arki kartid laakiin waxa ka edit gareyn kartaa oo ka fogeyn kartaa ama ka soo dhaweyn kartaa drop shadow marka dooratid meelahan ay ku qoran tahay distance oo kale saa u yar fogee then size-ka daarto waa badin kartaa ama yareyn kartaa ama wax harta ka dhigaysa haddii aad u baahan tahay dhinacu ka jeedma dhinac kala geyn kartaa tusaale halkaas kala geeyay haddaan bedelo angle-ka uu isbedelaya qaabkaas aan bedeli karaa opacity-ga halkaas aan ka badin karaa halkaas aan ka yareyn karaa haddaan u baahan color-ka inaan bedelo halkaas aan ka soo dooranaya then wax ka dhigaya haddaan doono drop shadow casaan baan ka dhigaya har casriyeyn choice-ku adigu ku xiraya style-ka inaad bedeshido qaabkaad ka rabtid ka dhigatid waa inaad drop shadow dartid kadib aad meesha setting-kaad ka bedeli kartaa quality-ga baan wax bedeshid kulli halkaas ka bedeli kartaa layer style-kaas drop shadow saan ugu soo darnay haddaan u baahdo kan oo kale inaan ku daro isagana gradient waa dhowr color oo isku jira isla markaana u sameyn kartid wax laba color ama saddex color afar color ka kooban saa u dirtid isagaan dooranaynaa layer style-ka dooranaynaa ka doonanaa layerska then waxaan siinaynaa FX baan tegaynaa gradient halka fiiri gradient overlay waa ka gradient markaan doorto dabcan wuxuu saarayaa sida automatic black and white kala koreeya laakiin waxaan u baahanahay color kale tusaale ahaan meeshaasaan furaya gradientiga click baan ma furay laakiin waxaad iska hubisaa mar walba inay gradient ku dooran tahay kadib aad halkaa click siisid marka aad ka dooratay colorada u baahan tahay kaasoo kaleba geli ama kuwan geli kana kala waxaan u baahanahay kanoo kaleba noo saar khasama inaan isku colorka wadhigno kan saasaan u gelinay kan waxaan gelinayaa marka waxa la yiraahdo pattern oo isagana inaan pattern ahaan usoo gelisid effect style-ka isla sidii FX baa tagaysaa ama isaga click siinaysaa kadib waxa ku soo baxaysa layer style-ka meeshii halkaas wax ka dooraysa marka pattern wakaas
patternka marka wuxuu leeyahay isaguna settinyo inaad weli wax ka bedeli karto ama yareyn karto waa weyneyn kartid opacity inaad yareyn kartid normal ka dhigi kartid mise inaad multiply wax rabto dissolve ka dhigi kartid waxaan u baahanaynaa patternka ruuxiisa bedelno kanoo kala noo saarnaa kaas size-kiisa marka xogaa weyneynayna si u muuqdo dabcan kaas kadib baan okay leeyahay waxa kaloo meesha igu jira calanka Soomaaliya isagana waxaan u baahanahay inaan ka bedelo colorka oo color overlay casaaro gortan calankii doorto dibdan waxaan leeyahay FX baan tagayaa color overlay la soo ka dooranaya automatic marka isaga casaan weeye casaan buu noo okay baan leeyahay dentaas ku sameynaysaa kan oo kale isaga wuxuu la outer glow marka waxaan ugu soo daraynaa FX baan tagaynaa isla wadadii baan maraynaa kadib aan wax ka fiirinaa outer glow tusaale ahaan wuxuu ahaa outer glow-ga colorkiisa wax ka dhigaynaa oo kale casaan wax ka dhigaynaa jaalle markaan ka dhigno size-kiisa halkaas aan ka set gareynaynaa marka outer glow marka saas aan ugu daraynaa hadda outer glow-gii marka ma arki karno maadaama background-keenu cad yahay waxaan u baahanahay kale inaan background-kaas wax kale soo gashano si aan u aragno outer glow-ga kan oo kale noo geli colorkiisa waxa ka dhiganaa jaalle ama waxa ka dhigan oo kale color wax ka dhaxal karno kaas oo kale nooga dhig stroke naga saar hoos mari marka qaabkaas oo kale waxa calanka marka inaan outer glow ku daro saan ugu daray waxay tahay meeshii baan tagayaa layer style-kii kadib markaan layer style-ka doorto waxaan ka soo dooranayaa jaalle ama buluug ama qaabkaan rabo saasoo marka layer style-kii outer glow uu beeray waa ka outer glow wax weyn inaad u sameeyay layerka if ka baxaya banaanka uga baxay oo kale qaabkaas hadaad noise ka dhigaysid hadaad smooth ka dhigaysid intaba awsan hada gradient uga baahan tahay markaas ka soo dooran kartaa outer glow midabyo badan leh baad gelin kartaa qaabkaas kale u gelin kartaa marka layer styleska qaabkaas wax loogu sameeyaa layerada oo adigoo one layer layer oo gooni u daraya qaabka ugu soo dari kartaa wax tagaysa FX kadib baad qaabkaas wax ugu daraynaa layer styleska dhammaan layerada oo dhan iyagoo wada socda iyagoo kala socda intaba waa ku dari kartaa marka waxaad u baahan tahay inaad xasuusatid in FX meeshaas layerka marka kadib markaad layerka dooratid aad FX dooran kartaa marka click siin kartid markaas aad sii dooran kartid waxa la dhahay maxaa FX-kii aad dooran kartid waxa style-kii kadib aad marka halka ka bedeli kartid wixii aad markaad edit gareyn kartid adiga choice-kaaga ama ila xaddiga aad u baahan tahay geysan kartid qaabkaas baa sida asaaska loogu soo dari karaa dhammaan layerada meesha kugu jiro dhan marka waxa muhiim ah inaad practice samaysid oo hubisid inaad wixii samayn kartid si aad ay kugu fududaato shaqadaadii intaas aan kusoo gabagabeynaa muuqaalkan uga hadlaynay layer styleska iyo qaabka layerada loogu daro muuqaalka ku xiga waxaan kaga hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo oo ku arkayna si gaar ah u fiirin doonaa color adjustment-ga colorada qaabka aad u kala bedelayso saarada layer u baahan tahay color ka bedeshid colorada qaabka aad uga bedelaysay iyo colorada isku dhaafinaysay insha Allah si gaar ah u fiirin doonaa waana kulanti dama xiiso leh